والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكرك alle iyo xuska alla oo la badiyo waa mas'alo ilaahayna uu amray rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu nagu booriyay. waxaan rabaa aayad qur'aan ah iyo hal qisa ah iyo hal faa'iido oo dhikriga ilaah laga helo inaan idin la wadaago. wuxuu allah leeyahay tabaaraka wa ta'ala fadhkuruni adhkurkum. haddaad xustaan waa idin xusaya, isheega waan idin sheegaya, fiiriya xasuusta waan idin xasuusanaya. walaalaha hadda facebooka ku jira iyo internetyada ku jira waxbaad boosti garaysaan. markaad wax boosti garaysid waxaad jeceshahay in la share gareeyo oo like la saaro oo lagu soo dhaweeyo oo comment la saaro. hadduu qofku dhaho meeshaasaan joogaa anaa ku camiraya soo boosti garee, waxaa xaqiiqa ah wax badan inaad boosti garayn lahayd. allah baa wuxuu ku leeyahay tabaaraka wa tacaala ixus waan ku xusayaa, isheeg waan ku sheegayaa, ixasuuso waan ku xasuusanayaa. haddaad hal kelimad oo dikri ilaahay ah aad boosti garaysid ma aha facebook, laakiin waxaad u boosti garaynaysaa samaawaadka dushooda. subxaana allah, alxamdulilah, laa ilaaha ila allah, allahu akbar. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ballankaaga qaaday inuu ku xuso oo ku jeclaado oo like asagu uu ku siiyo oo ku commenti gareeyo oo ku soo dhaweeyo oo share gareeyo informationkaaga. wuxuu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala xadiith alqudsi wa ana macahu idaa dakaranii. hadduu addoonku i xuso waan xusayaa, hadduu addoonku i sheego waan sheegi lahaa. waxaad fiirisaa haddii maanta qof aad jeceshahay, gabar aad jeceshahay ay ku dhihi lahayd haddaad i xasuusto magacayga sheegto waan ku sheegi lahaa, waan ku xusi lahaa. xaqiiqo waxaa ah waxaad magaceedaad ku werdin lahayd faadumo faadumo faadumo, aamina aamina aamino, caasha 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 waad dhihi lahayd. allah rabbulciza oo ku abuuray oo kownkan oo dhan iska leh oo sharafta dhan agtiisa taallo baa kule ixus waan ku xusayaa, isheeg waan ku sheegayaa. ma ka faa'iidaysan kartaa arrinkaa inaad sharaf yeelatid, kor isu qaadid, lagu jeclaado oo dikriga ilaahay aad badisid. masalada labaad, dikriga ilaahay waxyaabaha laga faa'iido waxaa ka mid a ma dhici karto allah tabaaraka wa tacaala in aad adoo xusaya aad wax weydiisato ilaa alla wuu ku siinayaa tabaaraka wa tacaala. xaqiiqo weeye wuu ku siinayaa. waxaa imaamu axmed ibnu xambal qiso yar baan idinla wadaagayaa. qisadan waxay leedahay nin ka mid ahaa a'immadii hore ayaa wuxuu ka soo wariyey ibnuljawsi imaamu axmed ibnu xambal oo musaafira ayaa wuxuu yimid meel cidla ah, masaajid buu cishaha ku tukaday. cishihii markuu dhammaystay uu masaajidkii iska fadhiistay si uu kitaabadiisa u akhriso u seexdo. waardiyihii masaajidkaa u yimid, markaasuu wuxuu yidhi ukhruj min almasjid, masaajidkaa ka bax. imaam axmed xambal baa wuxuu yidhi kayfa akhruju wa ana caabiru sabiil, anoo musaafir ah xaggeen aadaasaan u baxaa? wuxuu yidhi bax. wuu kacay imaamkii wuxuu fadhiistay albaabka masaajidka agtiisa catabada. ninkii baa ka daba yimid, ka kac meeshaan masaajidka dhaaf. war waa ka soo baxay, maya bax. waa nin adag 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 oo imaamkana aan garanaynin oo ixtiraam aan lahayn oo mu'adina adag. wuu diiday imaamkiina, nina u kaco waa ka soo baxay masaajidkii. intuu lugaha qabtay buu jiiday buu wuxuu geeyey bannaanka laamiga, jidkuu dhex dhigay. jidka markuu dhex dhigay nin miskiin ah oo foorna leh oo foornadiisii raba inuu seexdaa arkay. ninkan odayga ah meesha lagu soo tuuray oo kitaabada wata oo qofna aan garanaynin oo silicsan. si kaalay aniga ila seexo oo ila joog inta salaada laga adaamay fajarka. wuu la seexday. ninkii baa wuxuu kacay salaada subax ka hor suu foornadiisii iyo wixiisii iyo barnaamijtiisa u diyaarsado. imaam axmed xambal baa waxaan la yaabay ninka intaas uu cajiinka qasayo oo wax diyaarinayo dikriga ilaahay ma gooyo. wuxuu leeyahay subxaana allah, alxamdulilah, laa ilaha illa allahu akbar, subxaana allah, alxamdulilah, laa ilaha illa allah, allahu akbar, subxaana allah, alxamdulilah, laa ilaha illa allahu akbar. imaam axmed xambal baa wuxuu ku yidhi mundu mataa wa anta fi hadihi alxaala tadkuru rabbak. meeqeebaa saan ahaydoo aad alle xusaysay? wuxuu yidhi intaas oo sano baan saan ahaa, mundu zaman baciid, oo aana dikriga ilaahay ka daalin ilaa uu ii noqday caado oo laygu ilhaamiyey sida neefta oo kale aanan kontarooli karin oo dikriga uu iska socdo. subxaana allah, alxamdulilah, laa ilaha illa allah, allahu akbar. caado tayib waa caado wanaagsan wey. imaam axmed xambal baa wuxuu yidhi famaada wajadta min barakati dikrika lirabbika. xuska aad alla xusaysid maxaa baraka ood ka heshay? ما دعوت الله ما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه. إلهي وحمو ويديست إلا هو إسيا
إلا واحدة هل مد إيجا مغل هل مد الدعاء بان وايي wax kasta oo kale oo duco alla weydiistaan hela Ahmed Maxamed Awfiid wama hiya waamax kasi alla waxaan weydiistay inuu itusa Imam Ahmed ibn Hanbal Imam ahli sunnah anoo يا أحمد حابة أن توقف لي وحيري ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل وهو يجر من رجليه ألا واكم أحمد بن حنبل كو كامل أصور اللغة اللي جيري وحد في رسال إخواني وحا إمام أحمد بن حنبل لو سو جيري لو سو بحيي لو كان ماشاس ما أها حمين منكم مقرنين وأن كان مسكين كالدعاء ديسي كور هذا الله وحويديسي تمام الله حصي سبحان الله الحمد لله إله إلا الله أكبر حنكوصها ختمة يعني ذكر الله تبارك وتعالى والله ما دعي كرته قف إنه الله حسكي صبديه أو دريم ولول يا قلبي حنون يا وحشة قلبي قاعد دقة نفتها كنا ولاته مولش النفط روح بقف وحيكون ولاته ذكر إلهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب أخي أختي هيست ده هذا الله اسكده bugaag baan ku seexdaa si story ama sheekal akhriyaan ku seexdaa inta aan seexan hudda iyaga sidaa dhikriga ilaahay ku seexo oo ku soo toos asaga ku dagaysaa